waxay ahayd habeen aad iyo aad roob u da'ayay. Anigana markaa waxaan mooday in aan riyoonayay. Xilligaas waxay ahayd 8 saac habeenimo. Waxaan ku noolaa guri keligayga ah. Jabigayga oo idil ayaaba isbedelay. Waxaan soo fiiriyay qaybta bannaanka guriga. Waxayba ahayd cirkiyuu isbedelay xilli habeen ah. Cirkiyoo dhan wuxuuba noqdayba cir buluug ah asagoo idil. Xilligaas waxay ahayd xilli habeen ah. Anigoo yaaban ayaan waxaanba ka soo booday sariirta. Waxaan soo baxay qaybaha kale ee guriga. Waxaan ka soo baxay qolkayga. Aad iyo aad baan u naxsanaa. Laakiin waxaanba ogaaday in aanba ahayn wax igu dhacayo. Ma aysan ahayn wax igu dhacayo, waxay ahaayeen wax aniga aan ku riyoonayay. Waan ka soo baxay qolka oo waxaanba soo aaday qayb kale aan aqoonin. Waxaan sitay toosh. Gurigu idil wuxuu ahaa guri asagoo dhan isbedelay. Kolba dhinac ayaan fiirinayay. Inta aan geesaha fiirfiirinayay ayaan waxaa maqlay qosol. Aad iyo aad baan u naxay. Marna waxaa iga damay tooshkii aan waday. Xilligaas ayaanba ka soo cararay meeshii aan ku jiray. Riyadan waxay ahayd riyo aad iyo aad u murugo leh. Habeenkii oo idil waxaan ku jiray meel aan caadi ahayn. Kolba waxaan galayay qolal oo meel aan laga baxsada lahayn. Gurigaas wuxuu ahaa guri aad iyo aad u weyn. Mar waliba waxaan raadinayay meel aniga aan ka baxo. Intaan geesaha fiirfiirinayay ayaan waxaan arkay meel gees oo laga bixi karo. Laakiin ma aanan ka bixin. Waa markii aan dareemayay in waxay igu dhici rabaan. Anigoo yaaban ayaa mar sikadiis waxay igu dhaceen. Waxaasna waan ka sii waayay. La soco sheekadan sheekada xigta. Fadlan haddii aad ka heshay sheekada, like inoo saar, lana wadaag asxaabtaada. Haddii aad ku cusub tahay channelkana, subscribe inoo saar. Mahadsanid.